السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan khiyaartana daawanaysa idilkiin baa meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid kamida barnaamijyada aan idinku talagalnay maanta oo axada taariikhdu ay tahay 25 Febraayo sanadka 2024. haddaba barnaamijkeena oo ah kii ugu horeeyay barnaamijyada aynu maanta idiin soo gudbin doono haddii Allah uu dilay ka raali noqdo waxaan idinku hayaa dhowr qodob oo muhiim ah. hubkii loo qaybiyay dadka Yahuudda ah ee xoogga lagu dajiyay dhulka Falastiiniyiinta si ay isaga difaacaan haddii Xamaas ay soo galaan ama kooxaha Falastiiniyiinta deegaanada ay joogaan sidii dhacday 7 Oktoobar oo kale ayaa hadda waxaa la sheegayaa hubkii inay ka iibsanayaan Falastiiniyiinta. haddaba dowladda Israa'iil oo ka walaacsan arrintaas iyadoo hub fara badan la sheegay inuu u gacan galay dadka Falastiiniyiinta ah ee iyagu markii horeba ku sugnaa deegaanada Yahuudda ay degan yihiin. haddaba tafaasiil ku saabsan cabsida soo food saartay arrintaa iyo warbaahinta Israa'iil waxay ka yiraahdeen ayaan barnaamijka idinku soo gudbin doonaa. waxaa sidoo kale aan barnaamijka idinku hayaa warbixino kale oo ku saabsan maxaa ka soo kordhay wada hadalladii Gaza arrimaheeda looga hadlayay. warbaahinta cibriga oo siyaabo kala duwan uga hadlaya heshiis ay rumaysan yihiin in la gaari doono ka hor bisha barakaysan ee Ramadaan. yaa tanaasulay labada dhinac ma Israa'iil mise Xamaas iyana wixii laga qoray ayaan barnaamijka idinku faahfaahin doonaa. suxufiyiinta ku sugan waqooyiga magaalada Gaza oo hadda sheegaya xaaladii ugu adkayd abid in ay ku nool yihiin iyaga iyo caruurtooda iyo dadka kale ee halka ku nool kadib markii la sheegay in wax la cuno la la'yahay waqooyiga Gaza. haddaba iyana warbixin kale ayaan arrimaha idinku faahfaahin doonaa iyo wixii warar ee soo kordha inta aynu barnaamijka ku jirno. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa kamid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka Baker Street ee bartamaha magaalada London. halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa carruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud. dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. waxaa intaasi dheer in xaruntaasi French and Overseas Clinic ay ka howlgalaan dad Soomaaliyeed oo aqoon u leh xagga caafimaadka, dadka Soomaaliyeedna si gaar ah ula shaqeeya. haddaba bulshada meel kastoo aad joogtaan way ka abaal sheegteen intii tagtay xarunta caafimaad ee French and Overseas Clinic ee adinkuna ma tagtaan. bangiga caalamiga ah ee IBS Bangi oo aad mar walba uga barateen soo kordhinta adeegyo cusub oo casri ah waxa uu kugu bishaareynaya inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid eheladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigoo isticmaalaya xawaalada caalamiga ah ee Ria Money Transfer. Ria Money Transfer waa xawaalad caalami ah oo ka shaqeysa in ka badan 165 wadan oo caalamka waana mid ka mid ah xawaaladaha ugu waaweyn adduunka ee ka shaqeysa dirista lacagaha. ka qayb qaado farxadda ehelkaaga iyo asxaabtaada oo si fudud u isticmaal Ria Money Transfer. wixii faahfaahin boqolaanta kuugu dhow ee IBS Bangi. waa tahay kulanti wanaagsan mar kale khiyaar ay meel kastoo aad joogtaan. barnaamijkeennii ayaanu guda galaynaa iyadoo qodobo muhiim ah ay noo soo socdaan. marka ugu horeysa barnaamijka waxaynu ka bilaabaynaa arrinta ku saabsan maxaa ka soo kordhay wada hadalladii socday ee arrimaha Gaza ku saabsan. haddaba waxaan leeyahay wada hadalladu si hoose oo xawli ah ayay ku socdaan. waxaana saacadaha soo socda golaha wasiirada Israa'iil ay ku codayn doonaan qaabka telefoonka wax la yiraahdo oo macnaha qofka isagoo telefoonkiisa jooga ayaa ab ugu jira marka halka uu ka codayn doonaa. waxaana loo badinayaa in ay heshiiska qaybo kamida ay aqbali doonaan ama qaybta ugu horeysa. heshiiska waxa loo qaybiyay qayba loo qaybiyay qaybta ugu horeysa marka inay aqbali doonaan iyadoo cadaadis dhanka kale uu saaran yahay Netanyahu inkastoo isagu la leeyahay inaanu heshiis iyo waxa ka rabin oo uu doonayo inuu howlahan isaga dhex jiro.
haddaba marka xamaas iyadu way ka hadashay laakiin waxaa aada uga hadlayaa warbaahinta cibriga ama kuwa yuhuudda waxay leeyihiin rajada in heshiis la gaaro way soo dhowdahay maalmaha ugu horeeyana wejiga koowaad ee heshiiska ayaa dhaqan geli doonaa haddaba waxyaabo kala duwana marka la isku hayay oo xamaasna meelay taagneed israa'iiliyiinta dowladooduna meelay taagneed haddaba dhexdhexaadiyaashu maxay soo kordhiyeen maraykanka iyo masar iyo qatar maxay ku soo dareen arrintan isku jiijiid markii ay sameeyeen haddaba marka ilaa hadda marka waxaa la hayaa uun warbaahinta yuhuudda ayaa ka hadlaysa sheekadan oo noocyadooda kala duwan ayaa aada uga hadlaya laakiin dhinacyadii kale weli wax warara oo arrimahan ku saabsan lagama hayo marka maadaama tanaasulka iyo shaqada iyo hawsha ugu weyni laga rabo israa'iil sidaas darteed ayay warbaahinteedu aada uga hadlayeen saacadihii lasoo dhaafay marka barnaamijkeena waxaanu ku eegaynaa warbaahinta cibriga ama kuwa yuhuudda waxa ay ka qorayaan sheekadan saacadihii lasoo dhaafay haddaba marka waxaan ka bilaabaynaa joornaalka la yidhaahdo the time of israel the time of israel waa joornaalada israa'iil kasoo baxa kuwa ugu afka dheer ayuu ka mid yahay wuxuu leeyahay warbixin la helay oo dhanka xamaasa ayaa waxay sheegaysaa in heshiis isfaham ah la gaaray kaasoo xabad joojin muddo 6 toddobaad ah socon doonta 6 toddobaad waxaa la sheegay sida joornaalku uu qorayo in la sii dayn doono 200 ilaa 300 oo maxbuus oo falastiiniyiina oo u dhigmi doonta 35 ilaa 40 maxbuus dadka laga haysto yuhuudda waaye marka waxaan ku hormarnay joornaalkan la yidhaahdo the times of israel wuxuu leeyahay asaga masdarankiisa ama warkan wuxuu ku salaynayaa inuu ka keenay dhanka xamaas ila ku dhow xamaas inuu ka helay ayuu leeyahay macnaha mid walba waxa uu qorayaa waxa meesha uu warku ka soo xigtay ayuu marka ku lifaaqayaa marka wuxuu leeyahay masaadir ama warbixino dhanka xamaas aynu ka helnay ila ku dhow waxay sheegayaan in isfaham laga gaaray wejiga koowaad ee heshiiska wejiga koowaad ee heshiiska marka muxuu noqonayaa wejiga koowaad marka waxay leeyihiin joornaalkan the times wuxuu leeyahay wuxuu noqonayaa 6 toddobaad oo xabad joojin ah macnaha bisha ramadaanka ilaa ciida 2 wiig oo maaragtay la raaciyo 6 maalmood ee shawaalka ee maaragtay la soomo iyo wixii oo dhan dadka in maaragtay xabad joojin loo sameeyo marka waa 6 toddobaad marka in gargaarkii iyo wixiina dadkii ay helaan oo la gaarsiiyo maxay marka ku bedelanayaan wuxuu leeyahay marka isagu ma hubo 200 ilaa 300 macnaha tiro saxa weli ma hayo laakiin xogta uu helay ayuu sheegay joornaalku wuxuu leeyahay 200 ilaa 300 oo falastiiniyiin ah ayaa la sii dayn doonaa iyaguna waxay soo dayn doonaan maadaama ay hayaan 136 maxbuus ay xamaas hayso waxay soo daynaysaa 35 ilaa 40 oo maaragtay dadka ay haysato macnaha 35 ilaa 40 inta u dhaxaysa ayay iyaguna ku bedelan doonaan iyagana 300 ilaa 200 loo sii dayn doonaa xabad joojintuna waxay noqon doontaa 6 toddobaad u leeyahay marka warbixintaas marka waxaa qoraya joornaalka la yidhaahdo the times of israel marka maanta waxaynu barnaamijkeena aada diiradda u saaraynaa joornaalada israa'iil ee sheekadan aadka ugu qoraya maadaama iyaga keliya ay yihiin xogaha hadda la helayo oo ku saabsan heshiisyada socda haddaba marka telefishinka la yidhaahdo N12 ee israa'iiliyiintu ay leeyihiin isaguna si faahfaahsan ayuu sheekadan uga hadlay wuxuu leeyahay waxaa socda wadahadal ku saabsan in la gaarayo heshiis 6 toddobaad ah oo xabad joojin ah
kaasoo ay ka shaqaynayaan dhexdhexaadiyayaasha. heshiiskaas marka waxa uu keenayaa xabad joojin 6 toddobaada iyo in howlaha samafalka la gaarsiiyo meelaha dhibaatadu ay ka jirto Gaza gudaheeda. marka telefishinka N12 ee Israa'iiliyiintu wuxuu leeyahay wada hadalka markiisa hore wuxuu ka bilowday in 6 toddobaad Falastiin loo sii daayo 1500 laakiin arinta aad ayay u diideen Israa'iiliyiinta. muran badan baa ka dhacay. marka waxay ahayd 40 in maxbuus inay ku bedeshaan 1500 laakiin hadda waxa leeyahay waxay ku bedelanayaan 40 waxay ku bedelanayaan 300 ayay ku bedelanayaan. marka wada hadalka meelkaas uu cagacagaynaya uu maraya. marka waxa leeyahay qaybta ugu horeysa waxay sii dayn doonaan Hamas oo 40ka waxay noqon doonaan haweenka ay hayaan caruurta odayaasha. waxa kan ayaa marka hore lagu bilaabi doonaa. saraakiisha waaweyn ee ciidanka iyo generaalada iyo waxa kan lama sii dayn doono, way haysan doonaan. waxa kale uu leeyahay Israa'iil waxaa la saaray cadaadis. Hamas ayaa waxay soo jeedisay ciidankiina kala baxa kulli Gaza inta xabad joojinta jirto. gudaha Gaza hal askari ma ku arki karno. taas marka iyadana waana laga galay ayuu leeyahay kanaalka 12 waa la isku soo dhawaaday. Israa'iil way diidaneed. hadda marka Israa'iil waxay ogolaatay gudaha inay ka baxdo magaalooyinka laakiin hareerahooda ha iska joogeen. taasna Hamas way aqbashaa la leeyahay. macnaha gudaha iyo dadkii kala xirxirnaa waqooyiga koonfurta wixii in maaragtay ciidankooda ay gudaha dhan ka baxaan oo ninkii koonfur u socda iyo kii waqooyi u socda wax jidgooya oo u dhaxeeya inaanu jirin. oo macnaha sidaas ayay Israa'iiliyiintuna ay aqbaleen. Hamasna way ku raacday. marka waxa dhici doonta marka in meel walba gargaarka la gaarsiiyo oo xaalad xun laga soo sheegayo qaybo kamid ah Gaza gaar ahaan dhinaca waqooyiga. marka kaasna wuxuu ahaa kanaalka 12 ee Israa'iiliyiinta asaguna xogta uu sii daayay. laakiin ogaada waxaan oo xogaa aan idin siinayo oo warbaahinta Yuhuudda ay qorayaan 100% sax ma noqon doonaan. sababtoo ah iyagu waxay qorayaan xogo ay leeyihiin meelaha ka soo xiganay waa kaas ayay qorayaan. marka waxa laga yaabaa inay run noqoto inay wax iska bedelaan waa laga yaabaa. laakiin joornaalada Yuhuudda kaliya ayaa wararkan qoraysa. waayahay mar kale waxaan ku laabanaynaa joornaalka aadka uga hadlaya arrintan ee la yiraahdo The Times of Israel. The Times of Israel waxa uu qorayaa sheeko ku saabsan in la filayo inay codeeyaan xukuumadda dagaalka kuwa la yiraahdo ee Israa'iil inay dhinaca telefoonka ku codeyn doonaan oo heshiiskan ku saabsan isdhaafsiga maxaabiista iyo xabad joojinta iyo ku saabsan. marka wuxuu leeyahay Israa'iil golaheeda wasiirada telefoonka ku codeyn doonaan. nimankan heshiiskii ayaa loo diraa kadibna qofku uu soo codeynaa meel uu tigsiinaya kadib abwaaye halkaasa marka laga ogaanaa. marka wuxuu leeyahay qaabkaas ayaa iyaduna hawsha u socotaa. sheeko kaloo cajiiba ayaa warbaahinta cibrigu marka kusoo daraysa arrimahan ay kuwa kale ka hadlayaan. haddaba marka kanaalka Israa'iil ee la yiraahdo Kan News mid kale leeyahay waxa uu qorayaa isaguna nimankii Hamas ahaa dalab cusub ayay ku soo dareen wada hadalka saacadihii ugu dambeeyay. waxay leeyihiin marka dalabka haddaan wax laga qabanin kuwa kala dhan waxba ma ka shaqaynayaan. haddaba dalabkan marka uu leeyahay telefishinkan Israa'iilka wuxuu leeyahay wada hadallada waxaa lagu soo daray waliba ay Qaahiro markii ay ka soo tagayeen ay u dhiibeen masaarida oo halka laga sheegay Paris laga sheegay inay doonayaan in xayiraadda la saaray
dadka muslimiinta inay ku dukadaan masjidka barakaysan ee al aqsa in laga qaado bisha barakaysan ee ramadaan. janaalkan isaguna arrintaasuu kusoo daray. wuxuu leeyahay sheekada waxaa ku jira qodob muhiim ah oo furo u ah waxa kan. xamaas waxay leeyihiin dadkeennu waa inay loo ogolaadaa bisha barakaysan ee ramadaan masaajidka barakaysan ee al aqsa inay ku tukadaan, ku cibaadaystaan. hadda israa'iil shuruuc cusub ee soo saartay oo la leeyahay bisha barakaysan ee ramadaan masaajidka ma loo soo dhowaan karo, macnaha security-ga iyo nabadgelyada darteed. nimankanu hadday rabaan waxay rabaan samaynayaan. marka waxay leeyihiin marka xamaas sheekadaas in inta laga baxo filimkan annaga wuxuu noo yahay number 1 uu noo yahay. masjid barakaysan al aqsa ma lagu dukan karo, waxa aqbalayna ma. marka iyaduna dooday ku jirtaa leeyahay iyo wada hadalka. marka hawshaas halkaas marka maraysa. marka al-umuum ilaa hadda marka waxaad ogaanaysaan waxa hadlaya oo sheekadan ka sheekaynaya saana dhici doonta 200 aldeena 300 aldeena 1500 ay ahayd waa laga tanaasulaya. waxa warkan wado dhan waa miidiyaha yuhuud. marka waa sababta aan maanta diiradda u saarnay barnaamijkeena arintan oo miidiyaha cibriga ama yuhuudda aynu idinkula wadaagnay waxyaabaha ay sheekadan ka qorayaan. waayahay waxaan u gudbaynaa marka qodobka labaad ayaan u gudbaynaa. muddooyinkan waxaa jiray markii 7 Oktoobar weerarka uu dhacay kadib in yuhuuddu ay markaa dalbadeen in hub loo qaybiyo. waxay yidhaahdeen markii 7 Oktoobar ay xamaas xaafadeen inoogu soo gashay ee dadkeeni qafaalanaysa, haddaan hub haysan lahayn waa iska dhicin lahayn. marka hadda waxaan u baahannahay ciidan intuu nooga soo gurmanayay ma sugi karnee nin walba gurigiisa inuu qoray dhigtaan rabnaa. waa yuhuudda xoogga lagu dejiyay dhulka falastiiniyiinta. waxay leeyihin tiyo kale saysan noogu dhicin oo nala afduuban sidii ari camala dadka loo kaxaystay oo waa la qumiyey. marka waxay leeyihiin annagu marka waa inaan iska celinaa rabnaaye qoryahana loo qaybiyo. marka taa waxaa ku raacay ninka amniga haysta waa wadaad yuhuudeed mayal adag waay. horaa idinkugu sheegay bin khafiira la yidhahdaa. dowladdii wuxuu ka saxeexay netanyahu dadkan hubkaa loo qaybiyo, qoryaa loo qaybiyey. marka qoryo maaragtay inta loo keenay ayaa nin walba rasaasta waa lagugula xisaabtamaa. inta la yidhaha qoryihiia wixii yuhuudi ahaa oo dhan oo guryaha xoogga ku deganaa dhulka loo dhisay, guryaha loo dhisay ayaa qoryihii loo qaybiyey. 18 sano wixii ka weyn waa qaadan karaa layidhi qoryo. 18 sano wixii ka weyn marka nin walba waa isdiiwaan geliyay. haddii xamaas beri soo gasho waa iska celinaa oo kale. dadka marka maayaga marka dad wada wanaagsan ah oo bacdaha yuhuudnimadu daacad ka wada tahay. ninaa daroogaysta, ninaa wuxuu cuna haysan oo maaragtay daroogo inuu ku gata raba, qoryihiiyaa lasoo qaatay. marka dhulka ay degan yihiin waxaa layidhahdaa daanta galbeed iyo dhanka laynka cagaarana la yidhahda. laynka cagaaran macnaheeda waxa waaye yuhuudda ayaa isla haysiisay, dhankaasna falastiin a joogto. marka dhanka laynka cagaaran oo macnaha gudaha ku jira dad falastiiniyiina ayaa la degan gudaha. daanta galbeedna dad falastiiniyiina degan, yuhuuddana way degan yihiin. marka way isla degan yihiin falastiiniyiin iyo yuhuud. marka waxaa dhacay, waxaa la leeyahay marka nimankii waxaa la arkay falastiiniyiintii oo hubkii iibsanaya. cajiib. yuhuuddii hubkii way qaadayaan. falastiiniyiintan oo gudahooda ku jirta hab ay isu hubeeyaan male moogtay. macnaha xamaas inta hub soo siiso iyo meel loo soo mariyo male. marka ilaahay baaba nimco u keena aa la leeyahay. yuhuuddiya hubkii loo qaybiyey ayaa nimankan hubkii ayay ka iibsanayaan. falastiinigiina waa hubaysan yahay, yuhuudigiina waa hubaysan yahay. weliba falastiiniga waxa u si dheer ninkii raba inuu hawlo ka adeegashaa gudaha israa'iil ka sameeyo nagtow ka gelina.
hadda maalin hore oo kale qudus wixii ka dhacay laba wiiloo isla laata qorya inta qaateen ee nagta ka geliyeen qoryihii markii dib loo baaray hadda waxaa leeyahay waa kuwii loo qaybiyey dadki yahuudi wixii la sii waayay waxa nagta looga geliyey marka ayada tusa marka qaylo fara badana marka ka socota gudaha Israa'iil haddaba waxaa leeyahay marka Al-Jazeera waxaa leedahay hubka uu bin Ghafiir gaarsiiyey yahuuda hadda wuxuu gaaray falastiiniyiinta waxayna ku fulinayaan howlgallo ka waran bin Ghafiirkii uu yaaban yahay wadaad yahuudeedka kii dadka hubka loo qaybiyo ku doodayay oo qaylinayay oo meel walba la taagnaa hubka la qaybiyo hubkiisii ayaa inta laga qaadeen yahuudi falastiiniyiin u geeyeen ayay Jazeera waxay leedahay waxa lagu fuliyay howlgalla lagu fuliyay nagta looga geliyay yahuudi lagu laayay marka sheekadaas marka halkaas ay maraysaa dhanka kale marka telefishinada marka Israa'iil sida sawirada ka arkaysaan waxa ka socda dood la yaab laha ka socda kuwaas aan ka soo hadalnay waxay ahaayeen dadka rayidka oo qoryaha loo qaybiyay moogtay hadda waxa ka socota telefishinka saaran oo hadda aad arkaysaan warbixin ku saabsan laba askari oo ciidanka Israa'iil ka tirsan ayaa la soo qabtay waxa soo qabanaa Israa'iiliyiinta ciidankoodii soo qabanaya waxay labada askari gadayeen hub ayagoo siinaya falastiiniyiinta ka gadayaan rasaasta qorigaas dhamaata goorba meel maqaziina iyo hubka iyo ay joogeen marka labadii nin oo marka la soo qabtay ayaa warbaahinta marka Israa'iil saaran sida aad ka arkaysaan sawirada telefishinada ka hadlaya waxa leeyahay annaga si u dagaalamayna khaa'inul wadaniin kulaha anaga buux kuwa hubka ka gada Falastiin kuwa rasaasta ka gada annaga hubkeeni waaye waxa ay ku dagaalamayaan oo maartay nugula dagaalamayaan waxa aaminsanay ku leeyihiin Hamas xataa mar hore ka takhalusi leen moogta laakiin waxaan ay mar walba ay nugu habeynayaan hubkeena inuu yahay umaleynayna iska leeyihiin waaya qaybta ugu dambaysa marka barnaamijkeena maanta oo axada oo ah barnaamijka ugu horeeya ayaynu galaynaa qaybta ugu dambaysa waxaynu ka hadlaynaa waxa aad looga hadlayaa majaaca wax la yiraahdo majaacadu waa gaajo dadkii oo gaajo u dhimaraya gas sheekadaas marka way sii xoogaysanaysaa way ka sii daraysaa maalinba maalinta ka dambaysa marka gaajada xun waxay ka jirtaa dhanka waqooyiga waa meesha marka hore askarta Israa'iil lagu laayay waay Jabaaliya iyo Shujaaciya iyo dhulkan waay ciile u qabaan wixii ay xabad la gaari waayaan yahuudda waxay rabaan inay gaajo u dilaan wax raashina oo u gudba maleedeen meelaha kala koonfurta iyo wax tuurtuuriya tagaano oo dadku dhabarka ku qaaqaataan maahan dhinacan waqooyiga oo dhan waxay yiraahdeen wax raashina oo u gudba male markaas dadkii intii ay haysteen way dhamaatay maxaa la cunaa marka wax la cuno male waxaa marka la bilaabay in dadku ay qayliyaan war naga soo gaaray naftiyaana haysa waa la anayna gaaja u dhimanayna marka nin wariyaa oo telefishinka Al-Jazeera u soo warama oo la yiraahdo Anas Al-Sharif ayaa wuxuu soo dhigay bartiisa Twitterka sheeko aad naxdin u leh marka aadituso wuxuu soo qoray Anas Sharif sheeko ku saabsan dhibaatada haysata isaga iyo caruurtiisa wuxuu leeyahay marka waxaan soo toosay caruurtaydii oo qaylinaysa sabab ku saabsan gaajo daran oo haysa haddaba marka dhibaatadu marka wuxuu leeyahay waxay noqotay mid aad u xanuun badan waxaanu u dulqaadanay gaajo laakiin caruurtu ma awoodi karaan inay dulqaataan way ooyayaan annaguna waxaan u qaban karno ma jirto wuxuu leeyahay waxaan soo toosaynaa caruurtayniyo ooyeys gaajo darteed annaguna waxaa siina male annaga laftirkeennu wuxuu leeyahay waana haysaa
laakiin sida caruurtoo kale uma ooyi karno maaragtay nafaanahay laftirkeena. marka xaaladda wuxuu leeyahay meeshii ugu xumayday mare haddaanan wax gurmada aanan helin dadkan waqooyiga ku haray waxay u dhiman doonaan gaajo. laakiin Anas wuxuu soo qoray fariin kale oo aad cajiib u ah oo dadka dhan ay aad uga falceliyeen. wuxuu soo qaatay aayadda quraanka uu leeyahay am xasibtum an tadkhulul jannata ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ويسقل عيمك لبعضك كستا مشكلة كستا لب كستا اسكال عي لكن متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. إلهي قرقار كيسا قرمو إمانيا إلهي قرقار كيسا ودوية. مركا دادكاس مركا وداد إيمان له خير قصة إلهي إيمان كودها وحوشيو إلهي هبت باديو إلهي لباتدا يمشكلة دا كشران الله كسارو إلهي قولها سيو أذكرا دعاء آديات بعد وقوهناك سنتين والدعاية dadka marka mushkilada haysata marka xaal halkaasuu maraa. wararkii ugu dambeeyay wixii dhacay ayaan barnaamijkeennii ugu horreeyay maanta oo xada idinkugu soo gudbiyey. fadlan wixii fariimaha aad noo soo qoraysaan kusoo qora qaybta commentiska si markaa fariimihiina iyo aragtidiina aad maaragtay ugu cabirtaan barnaamijyadii aad daawateen. hayloobin inaad like garayso barnaamijka oo aad share garayso. haddaad nagala socoto Facebook iyo YouTube labadaba oo aad cusub tahayna subscribe-ka iyo follow-ga hayloobin. intaan mar kale kulmayno saacadaha soo socda iyo barnaamijkeena kale waxaan idin leeyahay dii alla idmo sidaa iyo nabadgelyo.